kulanti wacan daawadayaal halkaani waa NTN TV ku soo dhawaada wararkeena duhurnimo. Qodobada wararkaan idiin soo tabin doonana waxa ugu waaweyn taliyayaasha ciidamada militariga, booliska iyo NISA ee gobolka Gedo oo looga yeeray Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheikh doorasho dambe kama dhacayso teendhada Afisyooni. Djibouti oo xabsi dhigtay. Djibouti oo xabsi sanado ah ku xukuntay wasiiro iyo mas'uuliyiin kale oo sare. Muqdisho oo markii ugu horeysay si toos ah ugu xirantay qaaradda Yurub. Wararkeena dibadda ee aad daawan doontaan waxa ka mid ah gabar 16 sano jir Soomaali ah oo dishay nin ajnabi ah oo isku dayay inuu kufsado. Amiirka Daacish oo lagu qabtay magaalo uusan filayn. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan inta aan ku guda jirno warkeena duhurnimo ee daawasho wacan. Waa maalinimo Jimco ah bisha May ay ku beegan tahay 27 sanada 2022. daawadayaal ku soo dhawaada warkeeni oo faahfaahsan. dowladda Soomaaliya ay u yeertay taliyayaasha ciidamada booliska, militariga iyo nabad sugidda ee u qaabilsan gobolka Gedo, isla markaana ay degdeg ku yimaadaan magaalada Muqdisho. taliyayaasha loo yeeray ayaa waxay kala yihiin taliyaha militariga ee gobolka Gedo Warfaa Sheikh Aadan Farole, taliyaha qaybta booliska gobolka Cabdulqaadir Cumar Biixi iyo taliyaha nabad sugidda Bakaal Kooke. ila wareedyo ayaa sheegay in taliyayaasha wax laga weydiin doono xaaladda ammaanka ee gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Garbaharey. Xogta ayaa sheegaysa in ay suuragal tahay in xilalka laga qaado marka ay taliyayaashu soo gaaraan magaalada Muqdisho, isla markaasna taliyayaal cusub ay dowladdu u magacaabi doonto gobolka Gedo. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabad lagu bogaadinayo guddigii ka soo shaqeeyay doorashadii dalka ayaa ka hadlay arrimo badan oo maamulkiisu wax ka qaban doono inta ay talada joogaan. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in qorshayaasha ugu horeeyay ee ay fulin doonaan uu noqon doono meel marinta dastuurka la isku waafaqsan yahay oo dhinacyada bulshadu ay heshiis ku yihiin. inta dastuurku qabyo naga yahay siyaasiyan heshiis ma nihin weli. maalinta dastuurka ka heshiino waa marka siyaasadeennu xawli sare ay ku socon doonto, meeshaas ayaana u soconnaa, ayuu yiri Xasan Sheikh. sidoo kale waxa uu ballan qaaday in doorashada 2026 ee madaxweynaha aanan dib loogu noqon doonin teendhada Afisyooni oo horey ay uga dhaceen doorashooyinkii madaxweynaha. ballanteena caawa aan shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanayno in ay nagu garab siiyaan waa in 2026 Ilaahay idankiis aan teendhada loo noqon, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheikh. asagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yiri doorashada soo socota tuulooyinka iyo magaalooyinka ayaa lagu soo dooran doonaa xildhibaanada, waana ka gudbi doonaa caasimadaha maamulada. daawadayaal halka aad naga daawanaysaan weli waa NTN TV. maxkamadda sare ee dalka Djibouti ayaa shalay xabsi sanado ah ku xukuntay mas'uuliyiin xilal sare ka hayay dowladda Djibouti, kuwaasoo lagu eedeeyay musuqmaasuq, caburin iyo in ay baahiyeen dukumeentiyo iyo codad sir ah oo ay ku sheekaysanayeen Ismaaciil Cumar Geele iyo taliyayaasha ciidamada. shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa soo afjartay duulimaadkeedii Istanbul Djibouti Muqdisho, iyadoo ku bedeshay 2 duulimaad oo kala duwan oo kala ah Istanbul Muqdisho, Istanbul Djibouti. adeegan oo u socday si tijaabo ah ayay Turkish Airlines sheegtay inuu yahay hadda kadib rasmi ilaa iyo amar dambe, taas oo macnaheedu yahay in Soomaaliya ay hadda si toos ah ugu xiran tahay Yurub markii ugu horeysay muddo ka badan 30 sano. garoonka Istanbul Airport ayaa ku yaala dhinaca Yurub ee marinka Bosporus, wuxuuna sanadkii tagay ahaa garoonka labaad ee ugu mashquulka badan ee ay u kala safraan dadka caalamka u kala gooshaya, kadib garoonka Dubai oo kow ku jiray. intii uu socday coronavirus, Turkish Airlines ayaa si ku meel gaar ah isaga kala gooshi jirtay Muqdisho iyo Istanbul bilihii July ilaa iyo September 2021, balse wuxuu ahaa kaliya ku meel gaar oo waa la joojiyay. duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Istanbul ayaa sidoo kale si kooban u jiray 2012 markii Turkish Airlines ay bilowday duulimaadyadeeda Muqdisho, Istanbul iyo Muqdisho. Turkish Airlines waxay si toos ah uga shaqo bilowday Soomaaliya 6 Maarch 2012
iyada oo isaga kala gooshi jirtay garoonkii hore ee Ataturki iyo magaalada Muqdisho. Duulimaadyada ayaa bilowday 7 bilood kadib markii uu madaxweyne Erdogan oo xilligaas ahaa ra'iisul wasaare uu booqasho dalka markii ugu horeysay ku yimid. Waxay markii hore Muqdisho tagi jirtay 2 maalin toddobaadkii iyada oo ku hakan jirtay Khartoum, balse waxay kadib hakadka u wareejisay Djibouti bishii Agoosto 2012. Duulimaadkaas ayaa soo socday ilaa iyo dhammaadkii Maarso 2022, markaas oo kadib si ku meel gaar ah loo joojiyay. Hadda waxay Turkish Airlines si toos ah isaga kala gooshi doontaa Istanbul Muqdisho, taas oo meesha ka saaraysa ku dhawaad saacad dheeri ku ahayd safarka oo lagu hakan jiray Djibouti. daawadayaal halka aad weli nagala socotaan waa NTN TV, markaana ku soo dhawaada wararkayaga dibadda. xafiiska dacwad oogaha magaalada Qaahira ee caasimadda Masar ayaa baaraya gabar Soomaaliya oo la tuhunsan yahay in ay dishay nin Masri ah oo ay sheegtay inuu isku dayay inuu kufsado. dhacdadan oo ka dhacday magaalada 6 Oktoobar ee Qaahira ayaa gabadha Soomaalida ah waxay sheegtay in ay dishay ninka oo ku waday motobajaaj kadib markii uu ku soo qaaday weerar isaga oo doonayay inuu kufsado. Damibaarayaasha ayaa shaaca ka qaaday in gabadha oo ah 16 sano jir ay booliska isku soo dhiibtay iyada oo timid saldhigga booliska ee Gaza, la markaasna ku wargelisay in ay dishay bajaajle. gabadha Soomaalida oo aan magaceeda la shaacin ayaa sheegtay in ninka uu la soo baxay mindi iskuna dayay inuu kufsado, balse ay ku guuleysatay in ay mindidii la wareegto kadibna isaga ku disho. waxay intaas ku dartay in qorshaheedu uu ahaa kaliya in ay ninka dhaawacdo si ay uga badbaado, balse nasiib darro uu geeriyooday. waxaan doonayay kaliya inaan sharaftayda dhowro oo aan isdifaaco, mana damacsanayn inaan dilo, balse wuu dhintay, ayay tiri gabadha sida uu soo xigtay wargeyska Al Ahram ee Qaahira. dhacdadan ayaa si aad u qabsatay warbaahinta dalka Masar iyada oo laga bixiyay fasiraadyo kala duwan falka geesinimada ah ee ay sameysay gabadha Soomaaliyeed. Turkiga ayaa ku dhawaaqay qabashada hogaamiyaha kooxda Daesh kadib howlgal ka dhacay magaalada Istanbul. waxaa sidaas sheegay saraakiil sare oo ka tirsan dowladda. saraakiisha ayaa u sheegay warbaahinta Bloomberg in xubno ka tirsan sirdoonka iyo ciidamada ka hortaga argagixisada ay Abu Hassan al-Hashimi al-Qurayshi ku qabteen magaalada Istanbul ayagoo aan bixin faahfaahin intaas ka dheer. Qurayshi oo magaciisa rasmiga uu yahay Juma Awad al-Badri ayaa hogaaminayay kooxda mintidka ah tan iyo markii hogaamiyihii hore ee Abu Ibrahim al-Qurayshi lagu dilay howlgal ay ciidamada Mareykanku ka fuliyeen Syria bishii Febraayo. sida laga soo xigtay saraakiil amni oo Ciraaqiyiin ah, Badri waa walaalka hogaamiyihii koowaad ee Daesh Abu Bakr al-Baghdadi, kaasoo ay khilaafada kooxda kaga dhawaaqay magaalada Mosul sanadkii 2014. website-ka Turkishka ah ee warbaahinta Oda TV ayaa ka soo xigtay saraakiisha in hogaamiyaha Daesh la qabtay ay sirdoonka Turkigu isha ku hayeen guriga uu degan yahay. booliska ayaa sidoo kale lagu warramay in aysan wax xabad ah ridin intii uu howlgalku socday, oo website-ka u sheegay in lagu fuliyay hab aad qarsoodi u ah. website-ka ma uusan shaacin wax saraakiil ah oo ku lug lahaa, balse wuxuu ku warramay in madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu maalmaha soo socda si rasmi ah ugu dhawaaqi doono xarigiisa. hadlay warbaahinta Middle East ayaa xaqiijiyay saxaanshaha xogta uu wariyay website-ka Oda TV. inkastoo Daesh aysan haysan dhulkii baaxadda weynaa ee ay maamuleysay intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2018, markaas oo ay gacanta ku haysay 3 meelood meel dhulka Ciraaq iyo Syria, haddana waxaa weli loo arkaa in ay halis weyn ku tahay ammaanka gobolka. warkii aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga NTN waa naga intaas. intaan ku kulmi doono warkan warka xiga, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo. NTN TV.